وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة إن شاء الله تعالى وحين كقعدنا موضوع التصبيح ذا كصابسا سيبا قرآن كي يسيدو قصة أروري وحكم ده أي قرآن كتضبع يا فرتن سورة دودا كم ده سدحي سيديتنا آية دودا كم ده أي واحد تصبيح ذا كقصة أرورتي تضبع يسيديتنا قوابط waxay tilmaamaysaa tirada intaan leegi ahmiyadda rabbi siiyey subxaanahu wa tacaala tasbiixda iyo macnaha ballaadhan ay xambaarsan tahay idan wax ka mid ah wixii aynu ka gaadhna baynu tilmaami doonaa tasbiix subxaana allah ereygaas liyan macnihiisu wax weeyaan rabbi oo wixii aan u cuntamin u qalmin laga fogeeyo وتنزيه الله سبحانه وتعالى والرب سبحانه وتعالى ووحيان عنتمن أما قلمن لغفقيه تحميد أما حمد لدنا وإلهي الله أمانه كمال كيس الدمانتي يا فعاشيس إذن سبحان الله وبحمده قفك مسلم كي مركو لي وحويان إلهي وحو كديرينيا وحي نقائص ودن وحو السغيا وحي وناغ ودن أريغا كان واللفظ عربك كفضط لكن آيات القرآن مركين ويقنه وحبضا أيا إلهي فري النبي وينوادك سدى عليه الصلاة والسلام قهرين دوني دا وحي نوني من لين اتحامه وانا امتحان in badan baynu tilmaamnay ama qur-aanka soo aroorinoo ilaahay tilmaamayo kullu nafsin daa'iqatu lmowti wanabluukum bishari waalkhayri fitna wailayna turjacuun dunida intaynu joogno shar iyo khayrba in laynagu itixaami doono dadku inta badan sharka imtixaankiisay fahmaan oo qofku markuu xanuunsado ama faqriyo ama ammaan darra ku dhacdo ama mashaakil kala qabsado ama tijaaradu ka khasaarto ama waxaasi imtixaanka dadku inta badan wuu gartaa waana la arkaa dadka inta badan inay ilaahay u soo noqdaan subxaanahu wa tacaala markay dhibtaa la kulmaan dhanka kalena waa imtixaan caafimaadka xoolaha nabadda adduunka magaca maamuuska sultada كل هذا ينوى امتحان كره إلهنا القرآن كوحي نوغو تلماما يا أنبياء لبدا امتحان بمرتي والقرآن كوحي كورميا العصر الذهبي لليهود هاي علماء التاريخ تكون تلمامان عصورتي الذهبي هيدا يهود صامرتي وعصور إلهي وكل ميي دينتي يمدحني مدى يسوق البيرتي وعصري طالوت كسر بلاب ميي النبي الله داود وقبتي مدحني مدى كذب سجوا النبي طالوت يا نبي إلا تشوقي إلا بيك على هاي لكن عصري النبي داود بإلهي سجود دري النبي مدى يا مدحني مدى بقى كذبنا نبي سليمان وامتحان بلادن للجليي وإلهي ويديستي امتحانا سجد بدي عدنا بقى انتو صلاة أما وقتي معرض الصامرة وحده دافيي أي ربي وحو ويديستي امتحان كان كوين لقليه بغرطويا أن عد أنا جاي قدام بيساوي عنطمن إن لقوا اتحامه تيبا لسيي دبتنا وكو قول يستي امتحانك مركو كو قول يستي إلهي القرآن كوكو أماني وحانا الله كنت المامي نعم العبد إنه أواب إلهي كنت المامي نعم العبد دون في عني نويي دون كيو في عنا ونغشب بدن قرآن كإلهي أنبياء كانوا تلمامو امتحاما ودب لغو امتحاما ينوى الرسل وأنبياء قرآن كل نبي أيوب وحكا لينو وقمشيقين امتحان كيسي بوياني نبي أيوب الله امتحامي وامتحان كيسو حانوني هي سنة علماء waxay tilmaamaan xadiis ay sugaan
inuu 18 sannadood u bukay isagana ilaahay markuu imtixaanka ku guulaystay wuxuu ku yidhi fii nafsi suura nicma alcabdu innahu lafdigii lagu tilmaamay sulaymaan inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu ayaa ilaahay ku tilmaamay waxaanu hellay addoon sabir badan inuu yahay isaguna nicma alcabd awaabna waa lagu sheegay idan labada imtixaanba waa laba la ismariyo ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo labada imtixaanba la mariyey laakiin labada imtixaanba waxyaabaha ilaahay faray inuu adeegsado si ugu guulaysto imtixaanka dhibta ah fasdac bima tu'mar waacrid can almushrikiin inaa kafaynaaka almustahzi'iin aladiina yajcaluuna maca allahi ilahan aakhara fasawfa yaclamuun walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilaahay wuxuu nebiga faray waxaan ku amray ku dhawaaq gaaladu waxay sheegaysana ha u dhegtaagin ka jeeso adugu wixii lagu faray samee iyaguna waxay doonaan ha sheegaan waa saaxir waa kaadib waa shaacir waa kaahin waa kan ay waa la maagay ilaahay wuxuu ku yidhi inaa kafaynaaka almustahzi'iin kuwan kugu jeesjeesaya annagaa kaaga filan baa ilaahay yidhi aday kugu jeesjeesayaan laakiin xataa taada dembi ka weyn bay ku jiraan oo maxay ah aladiina yajcaluuna maca allahi ilaahan aakhara fasawfa yaclamuun baa ilaahay yidhi waa kuwa alle subxaanahu watacaala cid kale ku lamaanaynayo o la caabudaya haddaba nebi maxamed cidhiidhi baa haleelay ka haleelay rabbi waxa laga sheegaya iyo diinkiisii sida looga hor yimi waxaad qiyaastaa adiga inaga waxa laga yaaba inu dhahno dacwad baynu sheegno dadkii baa aqbali waayo bal waxaad qiyaastaa iyadoo adeerkaaga laxmiga ahi uu ku dabagalo oo halkaad istaagtaba markaad tidhahdo war ilaahay ka baqa uu yidhahdo kan yar annagaa dhalay oo waxba ma sheegayo waa been waa dawaqeeyaha dhegaysanina maxaa kuu dhici lahaa yacni inay dadku wax kaa dhegaystaan daaye haddii adeerkaa iskaa daba taago oo markaad wax sheegtaba isna wax kaa daba sheegaya nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam cid kale daaya adeerkii abiilahab baa daba taagnaa oo markuu wax sheegaba wax kale tilmaamayay ilaahay diintiisa sida looga jeestay buu cidhiidhi galay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa uu markhaati furaya cidhiidhigaasi jiro walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun baa ilahay yidhi waa ognahay in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay ku hadlayaan daraaddeed waxay ku hadlayaan daraaddeed inay laabtaadu cidhiidhiyoomayso aayaad kale qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun falaclaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruk an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanzun aw jaa macahu malak aayaad badan baa ilaahay kaga warramaya nebiga calayhi salaatu wasalaam cidhiidhiga soo gaadhay laakiin malxal muxuu kaga baxayaa ilaahay wuxuu yidhi fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin ilaahay u tasbiixso adigoo tasbiixdaada ku maraya amase ku dheehaya xamdiga alle subxaanahu wa tacaala inta sujuudana ku biiraya ka mid noqonaya waxay culimmadu yidhaahdaan halka kan waxaa nebiga loo sheegay dawaa-un yustashfaa bihi min diqi sadr wa tiryaqun lilaxzaan bay yidhaahdaan dawo lagaga caafimaado laab cidhiidhiga iyo wax lagaga bogsado murugada iyo tiiraanyada oo ah subxaana allahi wa bixamdi iyo salaad ilaahay subxaana wa tacaala loo tukado walidaalik ay culimmadu waxay leeyihin ayaddani waxa ay sheegaysaa tasbiixaadku inay yihiin cidhiidhiga qofka muslimkii markuu galo wuxuu kaga baxo cidhiidhiga nafsiga ahi markuu ku qabsado waa wax lagaga baxo qur-aanka dhul badan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam loo tilmaamay in mashkelada haysato waxaa la amray sabir oo tasbiixso ama sabir oo salaad adeegso مثلا في سورة قاف إلهي وحليه فاصبر على ما يقولون waxay ku hadlayaan ee afxumo ay sheegayaan ee alle iyo diintiisa ka sheegayaan ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sheegayaan fasbir calaa maa yaquuluun baa ilahay yidhi waxay ku hadlayaan ku sabir
ومحي سماه وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود بإلهي تصبيح سو أدقى كده هيا حمدك الله واقو انتانو بريين يا عدادنا انتاني دعين يا هبينكي مفسرين تبرد ماشان صلاة كفسرة مفسرين تبرد الظاهر كذا كفسرة أيا كانت ولا بدي مسألة إنه تلماميني نبت مركي قبصته إن لا تصبيح صدى في سورة غافر إلهي وحليه فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صبر إلهي يبوه سيبلن كي سوارنب ودم داف ويديسو وصبح بحمد ربك تصبيح سو أدقى كمرا يكده هيا ألم هدنقي في سورة طور با إلهي وحليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار السجود وإدبار النجوم في سورة الإنسان يا إلهي وحليه فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وهي علماء يدهدان ميل كسته ونبي عليه الصلاة والسلام انت بدن صبر لفره ودي بأي قبصته خاصة دبت النفسية وحال فري النبي عليه الصلاة والسلام دودي سنتين وتصبيح سنة الأصل ذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب كاسا الصلاة تصبيح دي التحميد ونوحي كم دين ذكر الله سبحانه وتعالى سيجارة مركا الله فري النبي عليه الصلاة والسلام عديد حدود دريمه وهذا الحمو يا أفحمو يا عي يا عيبين يا هيدارتين هدي اللي هيو إنه محي تصبيح صدا وحكى له إلهي القرآن كأنه قصة نقلي نبي عديد الجسدية من نفسي بقى بصدي وإلهي تصبيح نسنكو بالبادية وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي الله يونس الصديق القرآن كان معروف كي وحي تلماميسا إنه كتغي دولكي ولا جوغي بدأوا قالي دونتي لغا توري دبيتنا هبين مدو علماء سي شيغان ظلماتك يدو مدو وبد مدو هدنا وسي قالك حوت هنغوريجي فالتقمه الحوت با إلهي مو على لنا واللي بقيه حوت با هدنا اللي قيبان لي هل كاي سيغو كجيره فنادى في الظلمات با إلهي مقديدو كدخ قيلي حكو قيلي حكو دواقي أن لا إله أنت ومفسر دي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إله كريقا بحق لغو عابده سبحانك حمك وفنان تاد يعني ربي ماشن وكجر وحو السوغا يا بي علماء دوليين إن أنا الظلم ألا سميه أنا كقليل ليس بظلام للعبيد وحو السوغا يا وحسك حقي سكيمون نيتهي سادردد بوحلي لا إله إلا أنت إله وذا كلقا حق لغو عابده سبحانك حمك وفنان تاده إني كنت من الظالمين بولي أنا أنت الظلم فشيء يا أدقى فعل كاغو ما هم حي قدرت هذا الظلم كبتشر بولي يا أنا أنت الظلم فشيء إلهي سبحانه وتعالى قرآن كم حكوت المامة يا مركا سبب النجاة با إلهين وقوى الرمي ربي وحليه فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان هدي لا يهيب إلهي لا ينوهان شري قوة تصبيح صدا قوة كذا قوة تصبيح ذوضا هدان السداس أهانت وأهان شري با إلهي لي هدي تالا لا يهي وحكو سقنا الله ماشة إلى وقت دار تمعنى هذا وحويا إلهي وحوت المامية تصبيحات كيسا إلهي كوبد بادي ضيق يعديني وكتشري إنه بدل قضي ومركو هوري بدو دقيد لا عيرسد عربي سومالي دو ترى هذا بدو قفكو مركو قرقومه
waa meelaha aanay jirin qofku inuu rajadu ku yaraato isagoo bad ku dhaca haddana bahal silqa ilaahay wuxuu tilmaamayaa meeshaas uu galay inuu kaga badbaaday cidhiidhigaa tasbiixdu watay tasbiixdiisii inuu ku badbaaday waxay culammadu yidhaahdaan qofka laabtiisu inay fayowdo oo uu ridaa iطmi'naan uu helo oo uu raalli noqdo waanay noloshu cidhiidhiba ku noqonin iyo tasbiixda cilaaqa ka dhaxaysa bay leeyihin iyagoo aayadda suuratu taaha adeegsanaya suuratu taaha ilaahay wuxuu leeyahy maxay fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha wamin aanaaءi اlleyli fasabbix waaطraafa الnahaari lacallaka tardaa baa ilahay yidhi waxaa nabiga lagu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam sabir waxa ay ku hadlayaan eefxumo ah oo tasbiixso adigoo ku dheehaya alle mahadnaqi cadceeddu intaanay soo bixin iyo intaanay dhicinba iyo habeenkiiba baa la yidhi fasabbix wa aطraafa الnahaar baa la yidhi maalinta dacalladeeda yacni istawcaba tasbiixu اlyowma kullah habeen maalin cadceed soo bax cadceed dhac wakti kastaa la sheegay awal leyl iyo atraaftaba tasbiixdaasi maxay kordhinaysaa lacallaka tardaa kay tardaa baa la yidhi si laabtaadu ay u caafimaado si aad ridaa u hesho si aad deganaanshiye u hesho idan cid kastoo warwarhayo ama walbahaar hayo ama cidhiidhi adduunye u hayo ama mushkilad xallin kari waaya daraa'iqda lagaga baxe koowaad ee ah inay naftaadu badbaado in qalbigaagu dego niyadaadu degto aada xasisho adduunku aanu dhib kugu haynin waxaa laga helaa baa ilaahay tilmaamaya tasbiixda ilaahay adigoo tasbiix iyo taxmiid la yimaada ayaa laga helaa xataa culamada badh baa waxay yidhaahdaan salaada lafteeduba da iyaba waa tasbiixu oo ilaahay qur-aanka markuu tilmaamayo fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walasaan yusabixu lahu salaadoo dhan baa lagu iطlaaqay bay leeyihin tasbiixdatan marka tasbiixda iyo salaada marka horeba waa min ahami maa yashtagil bihi اlinsaanu fi salaatih waa tasbiix iyo taxmiid walidalik nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii mucaawiyata bn اlxakam ninkii salaada waagii hore waa la iska hadli jiray adigoo salaadaada iska tukanaya ayaa ninkan kugu xiga bal reerkii ka warraad iska odhan karaysay dhibi ma jirin mar dambe uu soo degay qur-aan ilaahay uu tilmaamayo waquumuu lilaahi qaanitiin inaan salaada wax kale lagu samaynin nimaan isaga warkaasi soo gaadhin ayaa salaadii ku hadlay nin baa hindhisay yarxamuka allah buu iska yidhi dabeetana waa loo sanqadhiyey inuu warkaa joojiyo war maxaa indhaa igu gubaysaan buu yihi sakaladku hooyadeedi ka goblantay haddana hadalkiibuu sii waday salaaddii markii laga baxay buu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leey weligay ma arag macallin ka fiican nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ima maagin oo ima dagaalin wuxuu igu yidhi war salaada tani uma suubamo bini aadamka hadalkiisa wax ka mid a inamaa huwa atasbiixu waltakbiiru wa qiraa'atu lqur'aan buu ku yidhi xadiidkii muslim ku yahay inamaa huwa salaaduba waa tasbiix iyo takbiir iyo qur-aan la akhriya buu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam walidalika culamadu waxay yidhahdaan salaada ilaa 7 meelood oo ka mid a tasbiixaadka ku soo arooraan bay yidhahdaan kow iftitaaxiyaadka salaada qaybo ka midi waa tasbiix subxaanaka allahuma bixamdik waata lagu bilaabo amaba se allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila iftitaaxiyaadka wax ka mid ah gaariga KCL 190L ninka liha qaadaa la yidhi KCL 190L tasbiixdu markaa salaada waa lagu bilaabaa oo rukuucda waa tasbiixsanaa subxaana rabbiy alcadiim oo sujuudda waa tasbiixsanaa oo aayaatu tasbiix qur-aanka markaad akhriyaysa hadday soo ararto waa tasbiixsan kartaa oo imaamka marka la tanbiihiyo hadduu qaldamo waa la tasbiixsadaa
وقف كان فاتحة أقونا صلاة الله برا أنت فاتحة كبرنا التسبيح بكتو كان كرا وهمرك صلاة الله دمية ولا تصبيح صدا إذا واحد هذا وتدوم يلوض كم إذا صلاة وتصبيح هذا صلاة هو نوع من التسبيحات قفك مسلم كي مرك هدي لبقبصته نبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة دايدي بقبصته صلاة حق يدو دق يشري نبي عليه الصلاة والسلام هذا بالضيق يدبتو مركي يشرته وحل قبحة اطمئنان لغو هلو رضا القلب يتكو هليسو الدقناشي يتكو هليسو حنونا دا ما انت دوني دا والي اتكقبك سنيسو دوني دا واحد مغلسة قف كان سترس باكو دعي قلق باكو دعي اكتئاب باكو دعي ديبرشن با دعي حنونا تربضا ونفسانية ودمان تود قفك بني آدم كا سيستم كيسي نيرفها هي هرمون دي سو شقينيين خلخل قلية ما أنت حنونا دوكو بدن بني آدم كو بيد هذا أسل كود وحيابها سكا بلا ما مركز دبو بيولوجيكال يسو بدلا بيد هذا وحاسو حنونا أسلم با إنتانو كو قدعين وحلقا قبك صدا وحكمدا علايس كستوكو هيا وحو كادقيا أيا إلهي لي تصبيح لهذا الله تمادو dhanka labaad hadday fitnadu kaaga timaado maalka iyo sultada iyo xoogga iyo marka aad isbiddo iyaduna waa khatar ina alinsaana la yadqa an ra'aahu istaghnaa baa ilahay yidhi bini aadamku waa qooqah waa kibraa waa xadgudbaa hadduu arko inuu isku filaaday hadduu arko inuu sulto helay maamul gacantiisa power u helay hadduu arko inuu hanti helay isna shaydaanku waa afuufaa afuufkaana waa laga bogsan karaa dunidaynu maanta naqaano dadku maalmahay guulaysteen maalmaha caynkana ka dhacay cududooday muujiyaan dowladdu waxay soo bandhigtaa maxay milatarigeed iyo waxeedoo dhan yacni soomaalidu maalintay xorriyadda heshay hees iyo damdam iyo alla caasidii bay bilowday bini aadamku حتى أدتك إن بدنا ومركي جورك وصلح ما وجورسده هبين قاسي معصي يبلي باص بالله وضع أصل كنا وحوها مركاد نعمها الشو إن شكر نقدت نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لبعطن يصدح سندود بودين تمودي واو قاچودي واو دب مطي واو دقالمي واو يعني wax nolosha laga soo maro dhan buu ka soo maray waxa nolosha laga soo maro dhan hortiisa raggiisa lagu leeynayay waan waxba u tari kareeyay sabrana la yaasiriyo wixii lagu hayay maka raggi joogay buu la noolaa isagoo waxba ka qaban karin cidhiidhigaas soo gaadhay isagoo ka hijroodo ka tagay ayay ka daba yimaadeen gaalo dhan bay soo adeegsatay oo meeshii ay joogeen lagu soo wada weeraray عرب ودم بعدين كوضا مرتي وحاصل دقالو صومر إلهي بأوهيلي دبتنا إلهي وحكوي سبحانه وتعالى آخر سورة قرآن كسودكته كسورة كاملة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذا دركتبه إلهي قوشي سقوطمي إيادتك ودين تسوى دقليه يعامل وفود مركي لقبل أبو قبيل بان نبي قال له قوي مني يا رير وصعده أنا نوار السلام عليه هذا دركتو دتكو الدين تسوق ليه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا دتكو كوح دين توقعنا يا هذا دركتين ما حيس ما يبقى إلهي كويري مركا ما بدبرات نقاد بالليلي سيدي الصومالي ده بالكالي عنا بي قادين مركا على كهله ما يا إلهي وحكيري فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تصبيح حمد قال لكم مريسد يستغفر لك علي إلهي سبحانه وتعالى يسقى توبة أقبله وهي علماء إلى هذا تنوح لك قبل بهذا العجب سلوين ده يستكبارك يكبرك
وبني آدم كو دن كان مربو وعده دن كان هو بهالكو إبليس كبل أبي أنا خير منه ده هالكو كبل أبي وياه إنه قفكو كبره إلا إلهي كو يري أم كنت استكبرت أم كنت من العالين لكو يري ورميت سوينين إسا بس مركي هربوات كريسو هصبا لكو صادقة بني آدم كو هدو عدود دي سأركانا وأفوف ما إنه دادك بكون يسمو له إلهي نبي الله محمد وحكو يري عليه الصلاة والسلام مركو قوليستي waxaa lagu yidhi markaana haddaad guusha aragtana tasbiixda laazim subxaana allahi wabixamdi subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir li ayuu nebigu ka dhigay rukuucdiisa iyo sujuuddiisa markii ay aayaadkani soo degeen idan halkana waxaynu arkaynaa tasbiixda mushkilaadku markay jiraanna in iyada la laazimo saa qur-aanku inoo tilmaamayo barwaaqada iyo badhaadhuhu markay jiraanna in iyada la laazimo idan waa furo ka mida furayaasha nolosha haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato haddaad rabto nolol aan warwarka iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ah aanay ku dhibin hadduu col yahay iyo hadday colaad tahay hadday cay tahay hadday ammaan iyo suldo iyo xoog iyo xoolo tahay labada midna aanay ku dhibin aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mid aad ahaateed aada rabto waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada dunidaynu ku noolay kaa'inaadka jooga oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan waa thaqaleynka un ciddan loo taaglaayay ee kolba meeluba cararaysa saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa 13 aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo 11 suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi fi suurati الracd fi suurati اlisra fi suurati اlanbiya tawba saba saad xadiid xashar saf aljumca atagaabun suwarkaasoo dhan iyadoo loo tiirinayo wayusabixu الracdu bixamdih onkodkaas baa ilaahay leeyahy waa tasbiixsanaya isagoo weliba xamdiga alle ku dheehaya wasakharna maca daawuud aljibaala yusabixna waطayr nabiyullaahi daawuud ilaahay wuxuu leey waxaan u sakhiray buuraha la tasbiixsan jiray aljibaal waطayr ayaa halkan ilaahay ku tilmaamaya tasbiixsanaya bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya tusabixu lahu الsamaawaat الsabc wاlأrض waman fiihin wain min shayin laa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kaana xaliima gafuura cirka waxaa jira iyo dhulka waxaa jira toddobada cir iyo dhulba waxaa jira iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhami ilahay bay u tasbiixsanaya wain min shayin laa yusabixu bixamdih shay ma jira baa ilaahay leeya ilaa iyo wuu tasbiixsanaya ee idinkun baan fahmaynin tasbiixdooda cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay masalak u khaasa طريقة وخاصة تصبح سدانين يجرت ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتصبيحه والله عليم بما يفعلون مد والبا طريقة وتصبيح سدبوا لي يبا إلهي المامية بله وحد عضه كائنات كالتسبيح ده إن مرر كبني آدم كلا مقاشيه معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام آيات كي صحابة ضيركتك كرد عليه وحكمده حديث كبخاري عبد الله بن مسعود ورينيو ولقد كنا نسمع تصبيح الطعام وهو يؤكل بوليه ابن مسعود وحلي وحانو هاي كوا مقلية عنده تصبيح سنة نقول عنينا ولا الرؤيا وانا تصبيح سنة عنده عنيني وتصبيح سنة إلهي بمغشيه سبحانه وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ويا وحكم ده حديث أبي ذر ورينا إمام الطبراني صار الشيخ الألباني صحيح كنت المام وحلي وحن فردي حاضر وحنها النبي عليه الصلاة والسلام اكتيسة حلقة سقوا فردية وقعنت قرور دحين يرجع قعنت كوهية ودحنت وقعنت كوهية تصبح سنة سبولي النبي قالوا لا فرديني أنا حلقة فردينا بولي كلمة
weliba wuxuu tilmaamaya wa fiina abu bakr wa cumar wa cuhmaan wa caliy baa naga mid ahaa buu leeyay ragga xalqada fadhiyey khulafadaasaa ka mid ahaa dadka fadhiyo oo dhamina dhagxantaa uu nebigu gacanta ku haya tasbiixdeeda way maqlayeen iyadoo la wada fadhiyaa la maqlayay intaa nebigu kumuu daynini wuxuu u dhiibay abibakar abibakar baa gacanta ku qabtay markaasay tasbiixsadeen qururixi weliba tasbiixdaana dadkoo dhami waa maqlayay buu yidhi abibakar baa nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam nebiga haddana wuxuu u dhiibay cumar markaasay gacanta cumarna ku tasbiixsadeen dadkoo dhan baa maqlayay buu leeyay markaasuu nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigaa wuxuu u dhiibay haddana cuhmaan buu yidhi markaasay sidii oo kale tasbiixsatay markii dambaa dadka loo dhiibay buu yidhi qof dambena lamay tasbiixsan buu leeyay dadka iyagii kale muu tasbiixsanin idan xadiidkani waa xadiid culamadu ay sixadiisa tilmaamayaan waxaanu sheegayaa in xataa qururux ay gacanta ku hayaan saxaabadu tasbiixaadkeeda in la maqlayay cunno ay cunayaan in la maqlayay kaa'inaadka o dhan baa tasbiixsada waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla abu hurayra warinayo nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nebiyada ka mid ah ayaa qudhaanya qaniintay markaasuu buulkeed meesheedii oo dhan amray in la gubo dabeetana ilaahay baa u waxyooda waxaa lagu yidhi ma hal qudhaanyii inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix ayaad ummadaha ka mid ah oo tasbiixsanaysa aada u gubtay baa la yidhi idan inagu maxalu shaahidkeenu u soconnaa waxa weeyaan umma min alumami tusabbix qudhaanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysay ayuha alaxiba tasbiixaadku sida ay muhimka diintan ugu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala 7 suuradood oo qur-aanka ka mida buu ku bilaabay 114 suuradood 7 ka mid ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard wahuwa alcaziizu اlxakiim suurat اlxashr iyo suurat saf aaya waaxida bay ku bilaabmaan suurat اlxadiidna ma fi lardi gunbaa ah walardi sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati walardi wahuwa alcaziizu اlxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suurat اljumca yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wama fi lard almalik alquduus alcaziiz alxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suurat taqaabun yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wama fi lardi lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir waxaa kaloo ku bilaabma sabix isma rabbika alacla aladii khalaq waxaa kaloo ku bilaabma subxaana aladii asraa bicabdihi leyla 7 suuradood 5 suuradood oo qur-aanka ka midana xamdalada ku bilaabmaan alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin alxamdu lilahi aladii khalaqa الsamaawaati walarda wajacala nuura wadulumaat yani ancaam iyo baqara iyo kahf alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwad iyo saba 5 suuradood oo qur-aanka ka mid iyaguna waxay ku bilaabmaan maxay xamdala haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala tasbiixdaasi siyaqa ficil maadi iyadoo waa soo aroortay 4 jeer ficil mudaaric iyadoo waa soo aroortay 20 jeer siqatu amr iyadoo 18 jeer siqatu ismi faacil iyadoo maratayn siqa masdara iyadoo 2 goor siqa ism iyadoo 41 jeer yacni 87 meelood bay tasbiixda ku soo aroortay oo 83 aayadood ku jira oo 47 suuradood oo qur-aanka ka mid ah in qur-aanka 114 suuradood 47 ka mid a tasbiixi ku jirta waxa ay tilmaamaysaa kamigaa tirada badan leh ee kayfiyaadka tirada badan leh u soo arooray waa daliilun calaa fadlihi wa jalaalatihi bay tilmaamayaan bay leeyihin culamadu tasbiixdu weynideeda iyo fadligeeda iyo cinda allaahi siday qiimaha ugu leedahay ayay sheegaysaa bay leeyihiin intaasoo siyaqoo tiro badan leh inay qur-aanka ugu soo aroorto 47 suuradoodna ay ku soo aroorto 83 aayadoodoo ka mid ah ayuha alaxiba waxaan leenahay marka tasbiixdu siday muhimka u tahay ilaahay ambiyada inta badan ee qur-aan ku soo aroortay in badan oo ka mid a tasbiixdooda ilaahay inoo sheegay nabiyullaahi moxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam
in alla soo diray waxyaabaha lagu cileeyay waxa ka mid ah in dadku tasbiixsadaan inna arsalnaaka shaahidan ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا بين إليه النبي قال الله صادرين إله إلا الرميه ورسول كيسر للرميه لوينيه ولو هيليه وقال الله تصبيح سدما ليلي بكرة واصيلا هاي علماء هذا لتؤمنوا بالله ولتسبحوه بكرة واصيلا بالله صادر النبي عليه الصلاة والسلام waxay yidhaahdeen nebiyullaahi muusa markuu dalbaday walaalkii in alle nebi uga dhigo waxay yidhahdaan waa ninkii walaal ugu anfac badnaa baa la yidhahaa nebi muuse waayo walaalkii ilaahay wuxuu uga baryay in isna nebi laga dhigo nebiyullaahi muusa walaalkii markuu rabay in nebi looga dhigo ee ilaahay ka aqbalay maxaa uu ku cileeyey wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi ushdud bihi azri waashirku fi amri sababtu u dalbanaya waa maxay kay nusabbixaka kathiira buu yidhi kay nusabbixaka kathiira wanadkuraka kathiira ilaahayo walaalkayna rasuul ka dhigo igu dar oo igu xooji kay nusabbixak si aanu kugu tasbiixsanno oo uu iila xoojiyo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbow igu dir buu leeyahy nebi yuunusna waynu soo marray tasbiixdiisii iyo in ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxa lagu badbaadiyey qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebiyullaahi muusa oo markuu yidhi rabbi aan ku arko ee rabbi yidhi yaa arkari may sida buurtaa eeg ee rabbi buurta tajalli u sameeyey ee buurtii dekan dekan noqotay markuu miyirka ku soo noqday tasbiix buu ka bilaabay falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk tasbiix buu ka bilaabay baa la yidhahdaa nebiyullaahi zakariya ilaahay wuxuu weydiistay in ilmo la siiyo isagoo gaboobay ilmihii baa rabbi yidhi waa ku siiyey aayad ii yeel baa la yidhi aayadda waxaa la yidhi 3 maalmood dadka ha la hadlin ramsi mooyaane ishaaraat inaad kula hadasho mooyaane hadal caadi ha kula hadlin laakiin arrin iyada ha ka tegin baa la yidhi واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار بلا فرق إلهي الماء وكسينيا لكن ذكرك إلهي بتصو ذكرك مركي الله شيء تصبيح له وكمل هذا نجار بالله شيء بيليه ووحى الليل وصبح بالعشي والإبكار نبي الله عيسى إلهي وحد الماما يا آخره مركي الله سوء تاغو إلا يرى ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ماذا دتك كويري أنا جي هو يدي إلهي أنا قاعد أكتب وحوكب بلا بدون أبا إلهي لي قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق سبحانك بكبل أبي نبي الله محمد إلهي وحفرج قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تدك واحد كنت الأهدابا إلهي لي jidkay aan idinku yeedhaya waa kan ilaahay baan idinku yeedhaya anigoo calaa basiira ku sugan ana waman ittabacani aniga iyo intay raacdayba wa subxaana allahi dheh baa la leeyahy wamaa ana min almushrikiin ilaahay baan xumo ka hufayaa inta rabbi ceebaysana kama mid yahi mushriku waa ceeb leh ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo magacyadiisuu diiday cibaadadu alla la siinayuu diiday rabbi buu ceebeeyey weeyaan إلهي مركه وحليه وحاتنا هو سبحان الله وما أنا من المشركين بل القرآن كو أنبياء الداية دتك كلا صالحين تا إلهي جنات ككركرية وبلن قاضي أستامه هذا وحل قصنتي تصبيح لين كمت إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وصبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلهي وحط المامية قوة آيات كيغا الرمية إنما يؤمن بآياتنا آيات كيغا قوة الرمية وقوة نقرة بالة المامية وقوة إلهي مركا الله حصه إلى حصوصيه هوبتا إيغو سجود سن وصبحوا بحمد ربهم بإلهي إلهي وتصبيح صدا إيغو كده هيا حمد قال له وان إسوينين كجرين بالرب إليه مصالحين تقول ما يا إلهي ملائكته ينوغو تلمام
إنا لنحن المصبحون بيت المامية يسبحون الليل والنهار لا يفترون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ملائكة إلهي وحط المامين التسبيح لازمان أهل الجنة ذاتك خير كبضان له يقول إلهي وحط المامين كل واقيا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين حمدية تصبيح بقى إلهي كقور رمية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك يا رب كل شيء يا سبحانه وتعالى أيها الأحبة تصبيح لهم دين تمركا مقام سريك جرته ضد كان ضمبه وحيابا بدع لما وديبها الله يسكت ديين لا لدق علمه لكن واحد مدائن للراعية وحي دين تفرش ذاتك والصوفية وكم بالليري دبتنا ذاتك عند وفي يعني فريد كاهي وانك أمم صلاة يراها لألا مركو كبحوه ترى أن لا قرن وفراعين كالا يدعو سبحان الله انت الله يدعو لما هي اسكتك لكن لا شيء انه وحي وبدنت ان تصبيحات وكو يراده iyadoo inuu dadkii laga yaabo inuu ka mashkilad badan oo ay hayd inaga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazimtu inay nagu tira badato nabigana alayhi salatu wassalam xadiiska muslim warinaya bidar uu ka soo wariyay waxa uu la yiri nabigu wuxuu yiri ala akhbiruka bi ahabbil kalam ila allah waxyaaba law jeceliya ba ku sheegaa uu nabigu yiri هاي إنه شيء بالله إله رسول كيسير إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده بنبكير ويقال لو جعلي هاي وحكم سبحان الله وبحمده حديث اللي بدأ بدر ورنا يوحلي نبي قال له ويدي أي الكلام أفضل وركم حوفظ بدن نبي يقول ما اصطفى الله لملائكته وحال لملائكتي سودورت أو لعبادي وهو محي سبحان الله وبحمده إذن أيها الأحبة تصبيحه أما ورده وحكم دي العبادات المطلقة عبادات علماء إلى هذا عبادات كان وقتك لهين شروط لهين على جواب الصلاة صون حج شروط إليين وقت إليين ولا مدين وقت يدا صوب على السماء أما تصبيح دو حكم تهي محي عبادة مطلقة في أي مكان هي في أي وقت بعد لا يمكرته حانو النبي قينوت المامي عليه الصلاة والسلام أذكار توفي عن الكمدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هو أنت ورديدي ونبي وصار نقضي wuxuu u sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam intii ay wardinaysay wax ka fadli badan isagu yidhi oo ah weerahana subxaana allahi wa bixamdi ilaahay baan xumo ka hufaya anigoo ku dheehaya mahadnaqiisa cadada khalqihi tirada makhluuqaadkiisa iyo zinata carshihi iyo ridaa nafsihi iyo midaada kalimaatihi idan ayuha alaxiba tasbiix أما الطعام كهن نقط أما الصلاة بهن نقط عمر بن الخطاب محل شيء ولو كنت مصبحا لأتممت صلاة غسر قاعد مركو والرمي يدي ديرين حولي ولو كنت مصبحا هدان تكنيو صنع يعني هدان تكنيو أنا جو صفرة تفر الكابان ديرين لهابولي ولو كنت مصبحا لأتممت إذا تصبيح له وحد الله يابطه هذا دركت ولا تصبيح صلاة وحد استحسان سطح هذا دركت ولا تصبيح صلاة وحد استغراب سطح هذا دركت ولا تصبيح صلاة وحد إنكار هذا دركت ولا تصبيح صلاة شرعه أنت بو سؤالوري شدة مركي جرت ولا تصبيح صلاة وين آيات كصوارنا ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فصبح الهير نعمة مرك الله حلوه وحلا ينفر فرس كأننا مدة بدينا مقاري كأننا مركي نفول إننا محين دهنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون هاي علماء إلى هذا تجدد نعمة هذا يكون عصبوناته فلما أفاق قال سبحانك
وعافماد قبي دبتنا ومير بالي دبوا عافماد waxay dhahdaan tajadud nicamka waxa la yiraahdaa subhaanak waxa kamida marka ducaysanayso waa laga horeysiyaa fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu ba ilaahi marka yiri waxay culimadu yiraahdaan hadda dambi gasho waa la tasbiixsada qala wasatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun ama ducadi allahumma anta rabbi la ilaha illa ant waxay sheegaysaa in la tasbiixsado markaad wada eegto نبي عليه الصلاة والسلام حليه من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما لنتي بقول شيرنك يراهدا ذنوبتي سوالا دافا وإن كان مثل الزبد البحر سعين كويال حتى هدي حور كبدل لك تهي أتريست حتى هدي نحن الصغائرته وصغائرته محاك بدن صبحي مركز صوت وسطه إلهي أنت قبل كوكا عيو أما هذا هضليا أما مد هضليا دقيسينيس إمسا خير هذا ملاينيس واقو مركو بريابين ورب لونا هدانا هذا ورمينا مد ورميا دقيسينيس أما تيفيها كو ورميا والراديو كو ورميا والتليفون كو ورميا أما سوقا كو شيء كيسنا مد ورميا وركاي مساد سلا ديبا كتاب خير كوتشنا إمساد سلا ديبا سه كتاب الشركة قال كنا إذن واحد ما أنت على الأقل واحد صغائر قشة هدي لقاك نافيو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبقول شرط هذا وحلا دافع معها كربة هي مشاكلكم مركوكو قبصده سيدا نبي الله يونس ويالي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله سمعية أيها الأحبة عديدي وهدات كشوال السمعية إذا وحين لنا أبا هريرة وحلا قشيغا ابن سعد ابن حجر رحمة الله عليه أيها حلي بن سعد باو حقوصة صار بسند صحيح عن عكرمة أن أبا هريرة كان يصبح كل يوم 12,000 تصبيحة مالك استينو التسبيح سنشري لبقية طبعا كن أوجر إنك تصبح يمسيد أنه ويمسح أبغل داد بركتو ولا بركتو سدح ركتو هاتسونا والله ما انت عيدك ما بدنا سوما هذا تبنشر ركتو ما هاتسونا لهي ده كون شربة تصبيح سنتي سوعي كما أبا هريرة وحلي أنا أقول لبيه طبعا كون أو شربة تصبيح سدا مركز سولي وحلي أصبح بقدر ذنبي ويري ده وركن يوحن كلام آخرين ينتهي ذنب أبي إن لقوا ما نسلي يقول تصبيح صو أيها الأحبة إلهي وحينا فريا ذكر جينا ينبضينه وحقنا فريا تصبيح دجارهان ينبضينه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا بالليل إلهي الذكر بدل حصى سجارة الوسط الماموح عليه وسبحوه بكرة واصيلا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا تصبيح ده إنه بدينه الأصل إنه ورد قدام بدينه وصحابي كوي يرس النبي عليه الصلاة والسلام دعاء إذا ما أنتي مثال إله رسول كيسي واديك كرديكا وهنا بقول أنت أدونت نص ما كرديك وعشاء ربع ما كرديك هذا أدونت كرديك بقول هذا كبت سطنا خير بدهلي وسدوا ودي أيوم مركي دم بوحولي هذا دعاء دم بوحن كرديك دونا ووقت وقارو دعاء سنتري دعاء دم بصلي كذا كرديك دونا النبي بقول إذا يكفى همك هذا صدا يشو ور كاغا ولا كاغا فلانيا وها هو بنتي واتجابين هداد ورورتو النبي محمد صلى الله عليه إلهي وكا قاضيا هداد ورورتو تصبيح ستو ولا قاضيا هداد ورورتو لا إله إلا الله ترى ولا هداد أذكارت لازمته لكن انتين أذكار لازمنا النبي عليه الصلاة والسلام وحين ليه إمام البخاري كتاب كيس حديث كوكو ختمي حديث كوكو ضمبي كتاب البخاري كويا الله وحديث كان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صحيحين كوكو أروري نبغوا علي لبك المدود وعربك كفضت أو وحبك أجبهنين
haddaad shaqaysanayso tumaaltay wax qoraysid gaadhigaaga haddaad wadato waad iska akhri karaysaa. soomaalidu haddaanu tirinayn ma jecla inuu wardiyo saxiixa maaha. wuxuu moodaa haddaanu tirs war rabbaa kuu tirinaya waxba tiradana ku mashquuli. gaadhigaaga adoo iska wata waxba ha tirsane subxaan allah ma odhan karta adigoo gaadhigaaga wada intaad jaamka ku jirto haddaad wardiday mise aad wardiyi lahayd waad umalaynaysa. waxaa laga yaabaa boqolka subxaan allah 1 minute 2 minute in lagu yidhaahdo. intaad jaamka taaganta qura ama intaad gaadhiga guriga ilaa shaqada intaad ku jirto haddaad samayso imisaad umalaynaysaa inaad tasbiixsan lahayd guriga ilaa shaqada bes haddaad tasbiixdaada ka dhigto haddaad lugeynaysa iyo haddaad gaadhi wadatayba. markaad guriga ka soo baxdo haddaad bilowdo inta aad shaqadaada ka gaadhayso intaad tasbiixsan lahayd. shaqadaada markaad iska fadhido haddaad tasbiixsato shaqadaada markaad wadato haddaad tumaalta iyo haddaad laydh samaynayso iyo waxaad doonto haddaad qabanayso haddaa carabka iyo afku waa iska dhaqdhaqaaqi karaan subxaan allahida waad odhan kartaa. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy kalimataani khafiifataani cala lisaan waa erayo carabka ku fudud haqiilataani fi lmiisaan qiyaamaha marka la yimaado xagga wasniga culus xabiibataani ila araxmaan alle agtiina laga jecelyahy ilaahay agtiisana waa laba kelmadood oo laga jecelyahy waa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. ayuha alaxiba darsiga dantan ka leeyoo dhami waxa weeyaan kow ilaahay kitaabkiisa inaynu dhuganno horta si fiican u fiirfiirino. weligaa haddaad mas'alo rabto inaad baadho musxafka faatixada ka soo bilow ilaa birabbi nnaas adoo su-aashaada wata waxay doontaba ha ahaato waxaan kitaab ku qorayn baad soo helaysa. inta badan dadku waxma ysidhahaan kutubtii culammada qortay ka baadh kutubta culammada waxaan ku qorayn baad helaysaa haddaad alle dhegaysato wuxuu kuu sheegayo. wax ku qoran oo aanaad weligaa fahmi jirin baad fahmaysaa haddaad qur-aanka faatixada intaad ka soo bilowda ilaa birabbi nnaas bal waxaan ku qoran aada eegto. xamdiga ilaahay muxuu ka sheegay haddaad eegto. subxaan allah ilaahay muxuu ka sheegay qur-aankiisa haddaad eegto. laa ilaaha illa allah maxaa qur-aanku ka sheegay haddaad eegto. aakhire maxaa qur-aanku ka sheegay. dadka waxay isweydiiyaan muxaadaraadka see loo diyaariya ilahay kitaabkiisa oo la akhriyaa laga diyaariyaa. axsan master loo noqdaa waa musxafkaas oo aad si fiican u akhrido oo si fiican u fahamtid. dariskan dantan kaleyo dhimi waa laba shay. mar waa in xidhiidhkiina kitaabka alle la leedin uu weynaado caqligiina ballaadhan fahamkiina kordhi xikmad baad heli. rabu samaawaati waalardi anzalahu bicilmihi baa ilaahay yidhi aqoon baa alla ku soo dejiyey. kitaabun fasalnaahu calaa cilmin baa ilaahay leeyihi. idan cilmigaasi kitaabkan buu ku jiraa. ninba intuu kala soo baxaa buu leeyahy ninba intuu ku tadaburaa buu leeyahy ninba intuu ka fahmaa buu leeyahy. kaasi waa mid. ka labaadaan idin leeyina waxa weeyaan abnaa'i saxwa gaar ahaan wardigu wuu yaraaday. adkaarta dadku waa ku yartay. dadka bar tusbaxaa bidcaa bay yidhaahdeen tasbiixdana way ku dareen. tasbiixdana tusbaxay raacday. hadday saa noqonayso tusbaxaaga iska sidoo tasbiixso. hadday tusbax iyo israacayaan tasbiixdu iska sidoo tasbiixso. asalku waxa weeyaan qofka muslimka ahi inuu ilaahay xuskiisa badiyo. intaad aadane iyo makhluuq xusi lahayd oo maxaa la yidhi aada odhan lahayd inaad rabbigaa xuskiisa badiso. adkaarta wixii kuu fudud aada akhrisato subxaana allahi wabixamdi alxamdu lilah allahu akbar laa ilaaha ila allah laa xawla walaa quwa. adkaarta soo aroortay allahuma salli calaa muxamed inaad wardi joogta a maalin kasta yeelatid. wardigu waktiba ma qaato. waktigaad shaqadaada wadato ayaad wardii kartaa. waxa hami inugu raran ee culaysina saaran ee warwardegi waayey ee dhakhtaraa kula wareeray waad ka maarmaysaa. waxaasoo warwariye heerye ah rabbaa kaa rogaya adduunka intaad joogto. aakhirana kuwa alxaamiduun ayaad ku biiri doontaa ee qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo. الطائبون الحامدون كواسات كبير هذا آخره أتكتنا صلى الله على محمد